الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في المسح على الخفين. وفصل ku saabsan axkaamta masixitaanka labada khuf. wuxuu ku xigsiiyey alwuضوء waana munaasib لأن المسح على الخفين من الوضوء. masixitaanka khufeynka la masaxaa wuxuu ka mid yahay weysada, waayo wuxuu bedel ka yahay maydhista labada lugood. wuxuu ku bilaabay xukunkiisa oo wuxuu uhi yajuusu waxaa bannaan almasxu masixitaan cala alkhufeyni labada khuf dushooda la masaxo fi lwuduu'i weysaysiga dhexdiisuu bannaan yahay. inuu bannaan yahay qur-aanka waa loo deliishaday qiraaءaة اljar oo ah qiraaءة sabciya waarjulikum ilى اlkacbeyn wamsaxuu calى arjulikum. waxaa lagu fasiray masixitaanka lugaa la masaxayo إida kaana almutawadi'u laabisan lilkhufeyn. arrintaasina waa ka sugnaatay kathiir min aلsalaf. haddii qofka weyseysanayaa laba khuf uu xidhan yahay baa loo jeedaa bay yidhaahdeen. ilay lugta oo maran lama masixi karo, waa ka yihi nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam weylu lilacqaabi min الnaar. waxaa kaloo ay u deliishadeen axaadiida tirada badan ee gaadhay xaddu tawaatur ee ka soo aroortay nebiga tusinaysa inuu masixi jiray khufeynka. waa ka yihi alimaamu nawowiy raximah اllah: waqad rawa almasxa cala اlkhufeyni khalaa'iq laa yuxsawna min aلصaxaaba. dad aada u tiro badan oo saxaaba ayaa wariyey axaadiida ka warramaysa almasxu cala alkhufeyn. xasan اlbasriyuna wuxuu yihi: xadaثanii sabcuuna min asxaabi rasuuli الlah ana rasuula اllahi kaana yamsaxu اlkhufeyn. cabdullaahi ibn mubaarakna wuxuu yihi raximah اllahu tacaala: laysa can الصaxaabati fi اlmasxi cala اlkhufeyni khilaafu. khufeynka in la masixi karo saxaabadu iskumay khilaafin. jamcu min alxufaadna waxay tasriixiyeen si cad u sheegeen biana axaadiida almasxi cala alkhufeyni mutawaatira. qaarkoodna waxay ururiyeen ruwaadda wariyey fajaawazuu 80 minhum alcasharaة اlmubashara. waxaana ka mida 80ka saxaabada 10ka ee jannada loogu bushaareeyey. wuxuu yihi markaa fi lwuضuء waa qeyd. almasxu cala alkhufeyn wuxuu jaa-is yahay weysaysiga dhexdiisa ilaa fi lgusl اlwaajibi wاlmanduub walaa fi isaalaة الnajis. oo masixitaan khufeynka la masaxaa maydhistii gusliga dhexdiisa waajibtay bedel kama noqon karo. wakadalika suulintii najaasada, haddii lugta ay najaasa marsan tahay oo khuf uu ku dul xidho, khufkan dushiisuun baan masaxayaayo najaasada maydhisteedii bedel ka noqonaya ma jirto. markuu yihi yajuuzuna macnaheedu waxa weeye yukhayaru lmutawadi beyna gasli الrijlayni wa beyna almasxi cala alkhufeyn. qofka weysaysanayabaa u door leh inuu lugaha maydho iyo hadduu khuf ku xidhan yahay inuu khufkaa dushiisa masaxo. laakiin ayuhumaa afdal, labada teeba afdala? waxay yidhaahdeen ashaaficiyatu alguslu afdalu, inuu maydho ayaa afdala. waayo lianna algusla huwa alaslu, waayo maydhista ayaa asalkiia. masixitaanka khufeynka la masaxayaana bedel buu ka yihi. walimuwaadabati الnabiyi calayh fi mucdami awqaati cumrih. nebiguna calayhi الsalaatu wasalaam waktigii cumrigiisa intiisa badan lugaha inuu maydho ayuu joogtay. marka wuxuu uga dhigan yahay almasxu cala alkhufeyn weysada waxay isaga dhigan yihiin maydhista iyo masixitaanka alwuduu'i maca tayamumi.
gabagabaysigiisu aan arki doono mar waa waajib marna waa jaa'is inuu gabagabaystay inuu weysaystaabuu kala dooranaya yaa sheegi kara suuradaas suura yakuunu fiiha tayamumu jaa'izan yukhayaru bayna alwudu alطahaara bilmaa wa bayna atayamum aye salmaan صح biyuu helayaa waanuu iibsan karaa laakiin thamanulmithli ka badan baa lagu iibinaya intii caadatan lagu iibin jiray in ka badan waxaa u bannaan inuu biyaha iibsado thamanulmithliga inta ka badan intuu ku iibsado dee uu ku weysaysto waxaa kaloo u bannaan inuu iska daayo iska gebagabaysto marka xaalatuljawaazka ayuhuma afdal inuu biyaha iibsado lugaha uu maydho mise inuu gebagabaysto inuu biyaha iibsado lugaha uu maydho waaye halkana wuxuu kaga hadlayaa masixitaanku sida saxiixa ee caamatu ahlicilmi ay ku tegeen mudduu leeyihi loogamana qiyaas qaadan karo waxaa loo yaqaano almasxu cala aljabiira isagoo aan muddo lahayn waayo qiyaaskaasi oo qiyaas faasidu اlictibaar limusaadamatihi lilaxaadiidi saxiixa kulu xadiiثu oo warada في عدم تأقيت المسح على الخفين فهو ضعيف حديث كستوك soo arooray صحيتانka labada khuf inaan muddo lahayna waa ضعيif nabiga عليه الصلاة والسلام kama sugnaan wuxuu iri للمسافر وإنما يجوز المسح مسحitaanku wuxuu u banaayo للمسافر kii musaafirka ahaa سفرا safarkaasi oo mubaaxana safarkaasoo tuqsaru la gaabinayo fiihi dhexdiisa asalaatu 3 ayaamin buu u bannaanyay 3 maalmood oo layaalihinna ay maca layaalihinna oo habeenadoodu la socdaan walilmuqiimi buu u bannaan yahay kii nagaa yowman wa leyla habeen iyo maalin ayuu u bannaan yahay qofka markaa musaafirkaa waa 3 maalmood iyo habeenadoodu masixi karaa xidhiidha ka muqiimkaayna habeen iyo maalin marka habeen iyo maalin marka la leeyahay 24 saacadood baa loo jeedaa oo siduu sheegi doono ka bilaabmaya weysadii uu ku xidhay ama dahaaradii uu ku xidhay markay ka jabto loomana jeedo yowm wa leyla kaamilaan habeen iyo maalin dhammaystiran looma jeedo oo ha noqdaan habeen iyo maalin dhammaystiran ama talfiiq ha galo oo habeen dhammaystiran iyo 2 maalmood mid walba nuskeed ama maalin dhammaystiran iyo 2 habeen mid walba nuski habeenku ha horeeyo ama maalintu ha horeyso muddadu waa 24 saacadood wakadalika 3 maalmood iyo habeenadoodu muratab ha noqdaan mulafaq ha noqdaan saynu sheegnay kuwa isku kabkaban ha noqdaan habeenadu ha horeeyaan ama maalmuhu ha horeeyaan waxaana u daliila xadiiثu cali ee imaamu muslim iyo ay wariyeen lilmusaafiri 3 ayaami walayaalihina walilmuqiimi yowm waleyla xadiiث aan muddada samayna saynu sheegnay waa daciif marka haddii uu qofka khufeynka masaxaya musaafir iyo maxaa shardiya safarkaas horta waa in noqdo safar mubaax oo safar uu yahay caasim bihi mid ilaahay ku caasiyey uu yahay safarka laftiisa uma banaana oo ka gudi mayso inuu khufeynkii masaxo waayo almasxu cala alkhufeyn waa ruksa wاrukhasu laa tustabaaxu bilmacaasi safar macsiyo ana qofku rukso ku heli maayo oo rukhaska macsiyo laguma banaysto waxaa kaloo shardiya safarku inuu yahay safar طawiila waa kaa yihi tuqsaru fiihi الsalaa oo safarka dheer ayuunbaa salaada lagu gaabin karaa safarka dheerina waa marxalataan
waa 2 maalin socod oo si dhexdhexaada loo socdo iyadoo gaadiid markaa la saaran yahay alaabtuna dadka ay u saarantay marka safarku wuxuu qaybsamaa misalada xuustaan waxaynu ku soo maray ama aan sheegay ibn al-Qasim ka markaynu sharaxay safarku wuxuu qaybsamaa safar tawiila iyo safar qasiira safarka tawiilka wuxuu la gaar yahay 3 xukum bil ittifaq safarka qasiirka aanu banaynayn على الصحيح هناك أفراد بمركان للجاري صدح الاسكوا فقسي سفر كدير إنه يكون جاريين والقصر قابين الصلاة ده سفر كامل حالتان كم بالو قابين كرا يفطر رمضان أفريتان كمان رمضان لا أفريه إيو مسح الخف 3 أيام مسيحتان الخف كلا مسح إيو صدح مع الموت كأفراد ولقاري هي سدا الصحانة والجمع بين الصلاتين جمعين الله جمعين يلا بدأ الصلاة جمع التأخير أما جمع التقديم سفر كمركا قصير كا قابلنا وحلقاري هي ترك الجمعة هذا المقالة كي ربح حضو وأتقادم ميل عن آذان كلاجا مقلعين ولو مسافة السفر بيانات سعوني وحارنتها سكوبة نين ساينات ظهر اسكتكت اللي بنان كتشمع له قموي كراي ياكل الميت عنستا بختك كوحكة للوايو يسقوط الفرض بالتيمم iyo faralkii inuu kaga dhaco gabagabaysiga waa madinatu faqd alma iyo jawaas tanaful ala rahila inuu salaadii sunnah ku tukado raahilada dusheeda walaw ila ghayr alqibla marka horeysan buu jeedinay xagga qiblada marka 8 xukum baa safar ku tacalluq 8 ruqso afar waxa la gaara السفر الطويل أفر نوحة لقارة السفر القصير أيها لقارة واي كافر السفر كالطويل كي ولقاري بحكم إذا المسح على الخفين 3 أيام ولياليهن مقيم كوح مسحي يوم والليلة ولو كان عاصيا بإقامته هذا لا صعوب من إقامته ساعة كوابها نقضي وسيدو إقامته ساعة ونغكرة السفر بقى كواجبي سفر كواجبي وكفر يستو وسكن قاعد كسو مسيحي كراه يوم والليلة واي كذلك يوم والليلة وحا مسيحي كراه العاصي بسفره العاصي بسفره يوم والليل بلو قولي كسفر كيسا لفتيس معسيه وأنشأ سفره لمعسيه سفر كما معسيه أوجد أيو بلابن وهذا بس ويدين له مدة سي قرمة كبلاب مثلا اللي صدق احتمال بقلي كره مركو حنا بين مدة الله تريو هي مركا ومسيحيتان كا مركا ورئيسة ومسيحين مدة الله تريو هي مركا ورئيسة طهارة وكحد أي تشبطه إن مدة الله تريو ومحل خلاف بين العلماء لكن شافعيين وحليين حسبان المدة من انتهاء الحدث مدة وحا لوغا ترينيا طهارة وكحدي حدث كدن بيا مركو دماادو مركو بلا ما حتى ما مركو دماادو وحو ان شيغي دونا waxay u daliishadeen wabtidaa المدة buri mudada bilowgeeda انما يحسب حلقه حسابينيا من الحدث اي من انتهاء الحدث حدث كطهارته ku xidhay dibada dhaca marka uu dhamaado يعني بعد اللبس xidhashada dibada xaala xadadkaas uu dhacay oo waqtu almasx goormu qofka u soo galay horta de marka tahaaradu uu ku xidhay ay jabto Sooma
isagoo tahaaro dhamaystiran qaba ayuu khufkii xidhay marka tahaaradaasi ay jabto ayuu usoo gelayaa maxay waqtulmasx markaasuu usoo gelaya waxay markaa masaladan ku bineeyeen oo ay ku dhiseen khufku almasxu cala alkhuf waa cibaada muwaqata sida salaadoo kale waa cibaado waqti leh cibaadada muwaqadkaana yabda waqtuhaa cinda jawaasi ficliha cibaadada waktiyeysan waktigeedu wuxuu soo galaa markay samaynteedu bannaanaato sida salaadoo kale salaada waktigeedu goorma qofka usoo galay dee marka tukashadeedu u bannaanaato iyadu waktigeedu aanu soo gelin ma tukan karee waktigeedu waktiga asliga ha noqdo ama wakti dee cudurdaar ku yimi sida jamcu taqdiim oo kale ha noqde markaa qofka almasxu cala alkhufeyn goormuu u bannaanaanaya te wuxuu u bannaanaanaya cinda intiqaadi ahaara alatii labisahumaa wa huwa calayh marka ay jabto tahaaradii isagoo qaba uu xidhay labada khuf markaasuu masixitaanka khufku u bannaanaanaya sooma oo masxigoo ficilkaah markaasuu u bannaanaanaya markaa ficilku u bannaanaanaya ayuu waktigii markaa ka bilaabmaya waayo min alxadaث buu yihi waa maxalu khilaaf beyn ashaaficiya ma markuu xadadku bilaabmo miyaa ayaa waktigii laga tirinaya ila waxaa dhici karta inuu xadadku laftiisu wakti qaato qofka kaadidii dee wakti dheer ay ka socoto ama qof dee ciladaysan ama shubmayo iyo musqusha uu saacad ku jiro markaa xadadku markuu bilaabmay baa looga tirinaya mise markuu dhammaaday almuctamad fi lmadhab waxa weeye in looga tirinayo min intihaai alxadaث waayo dee xadadkoo socda inuu khufkii masaxaamiyey u banaantay wuxuu taraysa almasxu cala alkhufeyn goormuu u bannaanaanaya dee markuu xadadki dhammaado soo ma marka waktiga ficilka oo masxiga u bannaanaanayo oo ah cinda intihaai alxadaث ayaa looga tirinayaa muddadii looga tirinaya wuxu uhi haddaba fain masaa'il taa ka farcamaysa uu sheegay wuxu uhi fain masaxahumaa markaa taa hore macnaheedu waa maxay horta macnaheedu waxa muddatu dawaami طahaarat lubs lama tirsanayo muddada uu ku sugan yahay طahaaradii uu ku xidhay oo kale lama tirinayo oo muddadan lagu tirin maayo tusaale ahaan salaadii subax weysadeediibuu ku xidhay khufeynka ilaa salaadii duhur weysadaasuu iska qabay salaaddii duhur waktigeedii markii la gaadhay buu weyse jabay waktiga subaxa dahaarada subax iyo dahaarada duhurka udhexeeya o dhan muddada kuma tirsana waayo dee dahaaradii uu ku xidhay ayuu ku baaqi ahaa sida aynu sheegno min intihaa'i alxadaث in laga tirinayo waa sida ibnu xajar iyo khatiibu shirbini iyo zakariya alansaari iyo ay tasxiixiyeen laakiin ramli isagu waa ka duwanyo isagu tafsiil kale ayuu geliyey wuxuu yihi xadadka laba loo kala qaadaya xadadka arrinkiisa ay ka mid tahay inuu ikhtiyaarkiisa ku yimaado awalkiisaa looga tirinaya kay arrinkiisa ka mid tahay inuu bikayri ikhtiyaarihi ku yimaadana sida dee taabashadii oo kale aakhirkiisaa looga tirinaya kaadidii iyo taabashadii iyo saxaaradii waxyaabaa noocaas waay lakiin sida muctamadka waa sidaa min intihaa'i alxadaث in looga tirinayo fain masaxahumaa haddaba hadduu masaxo labadii khuf ay bacda alxadaثi buu masaxay طahaaraduu ku xidhay markay jabtay aw axadama midkood buu masaxay xadaran fii xadarin isagoo negi ku jira buu masaxay uma saafara dabeetana wuu safray iyadoo muddadii muqiimku aanay ka dhammaan aw safaran aw masaxahumaa ama wuu masaxay safaran fii safarin safar isagoo ku jira uma aqaama dabeetana muddadii musaafirku iyadoo aanay ka dhammaan ayuu nagaaday
safarkii uu ka baxay aw shaka ama uu shakiyey hal ibtidaa'u lmasxi masixitaanka bilowgiisu hal waqaca ma dhacay ibtidaa'u lmasxi masixitaanka bilaabistiisu safaran fii safarin aw xadaran aw fii xadarin buu ka shakiyey warmaado oo musaafira baad bilowday masixitaanka mise adoo muqiima baad bilowday ayuu ku taraduday atama wuxuu dhammaystirayaa suwarka oo dhan masxa muqiimin muqiim masxigii loo ogolaa faqad oo keli ah xaalo kelidu iyo oo masxa musaafirin ma dhammaystirayo sababtu waa maxay sababtu waxa weeye an waxaa ku kulmay masixitaankiisa asafar walxadaru baa ku kulmay sooma waa kan masixitaankii bilaabay isaga oo muqiima kadibna safray ama isagoo musaafira buu bilaabay kadibna muddadii on ka dhammaan buu safarkii ka baxo muqiim uu noqday labadaa suuraba waxaa ku kulmay masxigiisa asafaru walxadaru asafaru walxadaru hadday cibaadada ku kulmaanna de yuqallabu jaanib alxadar oo dhinaca negida ayaa xukunka la siiya lianna alxadara huwa alasl waayo safarku waa shay soo dariya asalku waa inaanu qofku musaafir ahayn waxaa la mid ah haddii salaadii uu xidho tusaale ahaan isagoo muqiima deetana isagoo salaaddii ku jira ayuu safray oo diyaarad baa la kacday ama doon baa la dhaqaaqday salaaddiisa maxaa ku kulmay asafaru walxadaru keebay xukunkiisa qaadanaysa ma xadaro inuu dhammaystira waajib ku mise asafaro u gaabin kara mar hadday labadu ku kulmeen waxay qaadanaysaa xukm alxadar qaacidada ida ijtamaca asafar walxadaru gulliba alxadar waxay farc ka tahay qaacido kale oo fiqiga ayay farc ka tahay oo qaacidada markaa odhanaysa ida ijtamaca alxaadiru walmubiix qudima alxaadir haddii shaygii ay ku kulmaan laba sifo oo miduu xalaal ku noqonayo midna uu xaaraan ku noqonayo waxaa xukumka lagu dhisaa ta uu xaaraan ku noqonayo marka qaacidadaas adilana waa leedahay waxaa ka mida nebigu calayh salatu salaam wuxuu yihi haddaad aygaagii tababaraa ugaadha ku dirto oo ugaadhio dee dhimatay aada u timaado ay kalena aygaagii ay la joogta ha cunin buu hi nebigu calayh salatu salaam saasoo kale hadday biyo aad toogato oo biyo ay ku dhacdo iyadoo dhimatay aad u timaadaha cunin waayo ta hore garan maysid ma aygaagaad dilay kii aad bisinka u qabatay aad ku dirtay ee dilistiisu ay u noqonaysay gowrac mise ayda kalaa dishay xaadir iyo mubiix baa kulmay sooma arkaysa sababay xaaraan ku noqotay sababay xalaal ku noqotay tan kalena garan maysid ma leebkaagii baa dilay mise biyaha dilay markaa qaacidada adiladeeda xadiidkaasaa ka mid a sayidka ku soo arooray waaye tanna qaacidadaasay farac ka taho ida ijtamaca asafaru walxadar ay fi lcibaada gulliba alxadar waayo dee xadarku oo ah iqaamada iyo negistu halkan waa xaadir waxay kuu diideysaa inaad 3 maalmood iyo habeenadooda masaxdo safarkuna waa mubiix 3 maalmood iyo habeenadooda masaxdo kuu banaynaya xaadirka iyo mubiixana markay shay ku kulmaan keebaa xukunka la siin jiray alxaadiru baa la siin jiray sababtu waa taas masale kaluu keenayaa oo taa ka duwan oo ay tahay qofka aalib cilmiguna inuu fiirsado masalada hore waxay ahayd waktiga masixitaanku uu bilaabmay iyo waxa kala duwanaa waktiga ka dambeeyey oo isagoo muqiimu masixitaanka bilaabay muddadii on dhammaan buu safray ama isagoo musaafiru masixitaanka bilaabay kadibna safarkii uu ka baxay laakiin tani way ka duwanta waxa kala duwan ibtidaau lmudda markuu bilaabmay iyo marka masixitaanka uu bilaabay oo muddadu goormay ka bilaabaysa cinda intihaai alxadad sooma
xadadkiibaa dhammaaday isagoo muqiima muddadii baa u bilaabantay soo ma laakiin isagoo muqiima qofkii muu masixine isagoo musaafira buu masaxay ma masxa musaafirin buu kaasina dhamaystiranaya 3 maalmood habeenadooda mise masxa muqiimin oo yowm waleyla masaladaasoo halkana kaga hadlaya walow axdatha buu uri haddii uu weyse jabo xadaran fii xadarin oo tahaaradii khufka uu ku xidhay baa jabtay isagoo muqiima xaadira oo masaxa uu masaxo khufkiina safaran ay fii safarin atama wuxuu dhammaystirayaa muddata musaafirin buu dhammaystirayaa muddadii musaafirka loo ogolaa ayuu dhammaystirayaa waayo liannahu bada'a alcibaadata fi safar yacni muddadu goortay bilaabmaysay waxba dib u eegi mayno waxaynu eegaynaa cibaadadii oo almasxu cala alkhuf goor buu bilaabay isagoo musaafir uu daa bilaabay cibaadadu wuxuu bilaabay isagoo maxay isagoo musaafira mar hadduu isagoo musaafira bilaabay dee muddata safarin buu markaa dhamaystiraya ila cibaadada lafteedii safar iyo xadar kumay kulmine soo waadix maaha liannahu bada'a alcibaadata fi safar fahabatat lahu ruksatu safar cibaadadii wuxuu bilaabay isagoo musaafira xadadka oo ah kii muddada laga bilaabayey fi lxadar ha dhaco lakiin cibaadadii goormay dhacday fi safar bay dhacday marka muddata musaafirin ayuu masaxaya waay waxaa la mid a masaladaas oo iyaduna shabahda salaadii baa wakhtigeedu u soo galay wakhtigeedii oo jooga ayuu safray ma gaabin karaa ha u gaabin karaa waayo salaadan wuxuu bilaabay maxay isagoo musaafir ah ayuu samaynteedii iyo tukashadeedii uu bilaabay waxaa taa ka duwan oo dee tii hore la xukuma salaadii buu galay isaga oo muqiima isagoo salaaddii ku jiruu safray ma gaabin karaa maya waayo salaada samaynteedii adaageedii iyo ficilkeedii wuxuu bilaabay isagoo maxay isagoo muqiima uu bilaabay markaa taasay shabahda sawaan waxa isku mida buu ihi madaa calayhi inuu ka tago oo u dhaafo waktu salaati salaad wakhtigeed bikamaaliha iyadoo dhan fil xadari uu kaga tago am la ma teginaabaa isku mida macna miyay shardi tahay in ninka muddadu ay u bilaabantay isagoo xaadira xadarka muddadu ay ugu bilaabantay wakti salaadeed inaanu ku dhaafin miyay shardi u tahay inuu masxa musaafirin masaxo mise shardi umaaha oo fi lxadarka muddadu ugu bilaabantay wakti salaadoo dhammaystiran ha ku dhaafo ama yuu ku dhaafine mar hadduu masxigii isagoo musaafira bilaabay masxa musaafirin buu masaxaya marka musanifku raximah llahu tacaala wuxuu tilmaamay inay isku mid tahay oo xadadkii muddadu ay ka bilaabmaysay fi lxadar buu dhacay masxigiina wuxuu dhacay fi safar masxa musaafirin buu masaxaya buui ama isagoo xaadira wakti salaadeed ha dhaafo muddadii baa bilaabantay isagoo xaadira wakti salaadeed baa dhaafay ama wakti salaadeyaanu dhaafin oonu xadarka ku dhaafin hadalkaana wuxuu ku radinayaa wajhun fi lmadhab wajhun fi lmadhab oo odhanaya idaa saafara bacda khuruuji wakti salaati iqtasiru calaa muddat lmuqiim isagoo xaadira ayaa weysadii uu ku xidhay ay jabtay wakti salaadeed baa saa ku dhaafay kadib buu safray masxiguu isagoo musaafira bilaabay markaasunbuu masxa musaafirin masaxaya markaa masxa musaafir masixi maayo mar haddii wakti salaadeed isagoo xaadira dhaafo ee masxa muqiim buu masaxaya waxaana uga qiyaas qaateen salaada qiyaaskaasina sax ma aha waay wuxu uhi musanifku fain shaka masalada nacam
fain shaka hadduu ka shakiyo fi inqidaai lmuddati muddada dhammaanshaheedii muddadii loo ogolaa inuu masaxo inay dhammaatay buu ka shaki lam yamsax ma masaxayo fii muddati shak muddadaa uu shakiga ku jira ma masaxayo fain shaka hadduu shakiyo hal axdatha miyuu weyse jabo weysadii uu ku xidha ay ka jabtay waqta duhri duhurka waqtigiisa aw ilcasri mise waqtiga casrkay ka jabtay bana amru arrinkiisa wuxuu ku dhisayaa kaa shakiyey calaa annahu duhru waqtigaa uu weyse jabay inuu ahaa maxay duhurka inuu ahaa waqtigii duhurka inuu ahaa taasuu ku dhisaya waa muqiim wuxuu ka shakiyey habeenkii iyo maalintii loo ogolaa qofka inuu masaxo miyuu dhammaaday mise ma dhammaan isagoo shakigaa ku jira masxi dambe ma sii samayn karo hadduu sameeyana waxaa waajib ku ah lugihii inuu maydho intuu qofkii iska bixiyo dahaarada inta kale way ansaxaysa dee muwaalaadkuna shardi mu ahayn waay sababtu waa maxay isagoo shakisan oo muddada inay dhabaatay ka shakisan masxiga aanu sii wadi karin lianna rukhasa laa tustabaaxu bishak shayga ruksadii asalkii buu khilaafsan yahay soo maha sida asalka asalku in lugaa la maydhaa buu ah inuu khufkii lugaa ku jiray uu dushiisa masaxaa waa rukso ruksadu mar hadday asalkii khilaafsantahay shaki laguma banaysto waa qaacida fiqhiya alrukhasu laa tustabaaxu bishak shaki laguma banaysto wakadalika wuxuu ka shakiyey muddadu goormay uga bilaabantay muddadu ma duhur bay uga bilaabantay oo waqtigii duhur ku weyse jabay mise casar bay uga bilaabantay inay duhur uga bilaabantay buu markaa ayuu ka soo qaadaya waayo dee markaa bana amru cala alyaqiin arrinkiisa yaqiintiibuu ku dhisay oo haddii casar inay uga bilaabantay uu ka soo qaado muddo uu ka shakisan yahay buu dee xagga dambe uu ka masaxayaa bay noqonaysaa muddo laga shakisan yahay muddadii masxiga miyay ka mid tahay mise ka mid maahana in qofkii la masaxaa ma banaana waxaa la mida hadduu shakiyo almasaxa safaran aw xadaran isagoo musaafira buu masxiga bilaabay mise isagoo xaadira buu bilaabay waaya asalkiibuu u noqonayaa xaaladahan o dhan lianna alasla waa algusl weeye walow ajnaba buu hi hadduu janaaboobo qofkii khufka masaxay fi lmuddati muddada dhexdeedii buu janaaboobay muddadii loo ogola qofka inuu masaxo isagoo ku jiro ayay janaaba ku dhacday ama gabadhii baa xayday ama nifaas baa ku dhacay fi ahnaaءi اlmudda wajaba calayhi waxaa waajib ku ah nascu khufkii inuu bixiyo lilgusli suu u maydho waayo waxa maydhashada waajibiyaa wuxuu ka mid yahay waxyaabaha muddada jara ayuu ka mid yahay maydhashana bedel kama noqon karo almasxu cala alkhufeyn bedel kama noqon karo waxaana u daliila xadiidu safwan ibni casaal abu daawuud iyo ay wariyeen imaam axmed iyo tirmidi ay wariyeen amarna rasuulu llahi namsax cala alkhufeyn ida naxnu adkhalnaahuma cala tuurin ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة جنابة يضا إلا قبل حنايو ومسيحتان كيسو ما يرست جنابة أنو بدل كنقونا هين أي النبي عليه الصلاة والسلام شاقي وشرطه بودالك نوع قال لي شروط صحة المسح على الخفين مسحتان خفين كلا مسحا السحتان كيسو شروط بولي شروط على كقاضي وشرطه بوري مسحها سحتان كيسو واحد شرط واي أن يلبسه وإنه حدا خفكي على وضوء ويسيسغو كدل سغان كامل دميسترا marka على وضوء هادو لفتيده waa ku filan lahayd isagoo weysa qaba inuu xidho intaas waa ku filan lahayd لكن كاملا تمحور راعي في المجاز ووضوءه ده وحو مجاز كن نقون كرا غالب الأعضاء هدو ما يرو ووضوء بالله أوران كرا مجازا صما
marka linafyi lmajaas majaaskaasi uu meesha uga saara muxuu yidhi calaa wuduu'in kaamilin weliba waxaa ka fiicneyd inuu idhaahdo calaa tahaaratin kaamilatin tahaaro dhammaystiran isagoo ku sugan ila waxaa shardiga markuu xidhanayo xadaثulasqar iyo xadaثulakbar labadaba inuu daahir ka yahay cibaaradan musanifkuna waxay shardi ka dhigaysaa uun xadaثulasqar inuu daahir ka yahi ila waxaa dhici karta xadaثulasqar inuu daahir ka yaho weyse qabo iyadoo xadaثulakbarna uu ku waajibay oo tusaale ahaan mani baa ka soo baxday isagoo markaa fadhiyo oo salka dhulka si fiican u qabadsiiyey buu riyooday mani baa ka timi manidaas maxay ku waajibinaysaa meedhasho xadaث akbar lakiin sidaynu arki doonno hadduu weyse qabay dee weysadiisu jabi mayso hurdada noocaasina ma jebiso khuruuj lmaniyina weysada ma jebiyo alkhaariju min alqubuli waddubur mustathnaa buu kay mid laga soo reebay okay marka qofkaasoo kale waa weyse qabaa laakiin xadaثulakbar baa dee dushiisa oo meedhasha ku waajibtay marka ma masixi karaa khufkii mama masixi karo cibaarada musanifkuna inuu masixi karo mar hadduu weyse qaba ayay tilmaamaysa walihada waxaa fiicneyd inuu yidhaahdo washarطu an yalbasahu calى طahaaraةi kaamila طahaara min alxadaث اlasqar wاlakbar isagoo xadaثulakbar iyo xadaثulasqar labadaba daahir ka ah waa inuu xidho nabigu calayh الsalaaةu wasalaam wuxuu yihi dachumaa fainii adkhaltuhumaa طaahirayn mugiira ibnu shucba markuu doonay nebiga inuu ka bixiyo iskaga tag waan masaxaya waayo waxaan gashaday anoo daahiro dhammaystiran qaba xadiidka safwaanna saasoo kale waxaa ku jirta idaa naxnu adkhalnaahumaa calaa tuhrin waa shardi taas daahiro dhammaystiran isagoo qaba inuu xidhay labada khuf inuu xidhay ka shardigii koowaad waa kaa wa sharduhu shardigiisu an yakuuna waa inuu noqdo daahiran khufka laftiisu waa inay khuf daahira waa inuu noqdo oo khuf najisulcayna hadduu yahay oo ay tusaale ahaan haraggii laga sameeye ama doofaar haraggii masixitaankiisu markaa ansixi maayo wakadalika khufku hadduu yahay mutanajis khuf cayn ahaan daahir u ah laakiin najaasa ay martay najaasa oo laa yucfى canha najaasa aan laysu cafin waayo maqsuudka asliga ah ee khufka loo masaxaya waa maxay de waa in uu bedel ka noqdo maydhistii lugaha oo lagu tukan karo weysadaas dee khuf gebigiisuba najaasa najisa ama mutanajisa iyadoo la xidhay meel lagu tukan kara laguma tukan karo haddii la bixiyana dee bixintaasaa masxiga uu ku burayaayo wax faa'iido u leeyahay qofka ma jirto isagoo xidhana kuma tukan karo hadduu bixiyana masixitaankiisa waxba u tari maayo wayantaqidu almasxu bilkhalci wa sharduhu shardigiisu waxa waa shardiga saddexaad an yakuuna inuu noqdo khufku saatiran mid asturaya lijamiici maxali lfard lijamiici almaxali lmafruudi gusluhu meesha meedhisteeda la faral yeelay dhammaanteed waa inuu wada asturayo oo inta meedhisteedu ay faralka tahay waa maxay ee khufka xidhiidhka lali waa qadamuhu maca kacbayh gomadiisa oo labada kuraamoodna ay la socdaan waa inuu khufkaasi qarinayo oo xaggee uu ka qarinayo min jamiici aljawaanib gayr ilaclى dhinacyadoo dhan xagga sare marka laga reebo xaggan sare haddii la doono ha iska furnaato xagga sare oo lugtii yaanu ku dheganaana ha ka ballaadhnaado haddii halkaa laga eega mid lugtii laga arkaya ha noqdo laakiin dhinacyada iyo xagga hoose ee dhulka xigta waa inuu lugtii ka asturaya maxaa markaa satrigan looga jeedaa ma an yakuuna maanican liru'ya ba maya ma inuu isha aragtideeda celinayaaba qofka taasaa shardi u ah may lianna alkhufa qad yakuunu min zujaaj khufku inuu harag ka samaysnaado shardi maaha wuxuu ka samaysnaan karaa quraarad
lugtii ku dhex jirtay laga arkayo ama caag lugtii markaa ku jirtay laga dhex arkayo ee markuu leeyahay saatira sitriga waxaa looga jeedaa an yakuuna maanican linufuudi ilmaa waa in biyuhu inay ka gudbaan oo lugta ay gaadhaan haddii biyo lagu dul shubo inay biyihii khufkaa dhaafaan oo lugta ay u dhaafaan waa inaanu ogolaanahayn khufku walihaada buu yidhi maanica linufuudi ilmaa bixayu meel weyaan macnaheedu toorun bay tafsiir u tahay yucaddu lagu tirinaya maanican mid diidaya inuu yahay linufuudi ilmaa biyihii inay u tallaabaan lugta waa inuu taa diidayo waayo haddii biyihii ay lugta gaadhayaan dee meesha ay biyu gaadheen faralkeedu waa maydhis oo masxi faralke ma noqon karo mid faralkaa guda waay yumkinu wa sharطu shardigiisu waxaan an yumkina inay suurtowdo mutaabacat lmashi socod in la sii wado caleyhi isagoo la xidhan yahay la socdo litaradudi musaafirin xaalo loo socday musaafir noqoshadii lixaajaati danihiisa u noqnoqdo bimacnaa khufka masixitaankiisa waxaa shardi u ah inuu yahay mid lagu socsocon karo oo haddaan laguba socon karin sababtaan loogu socon karin waa lidacfihi waa daciifnimadiisa waa wax khafiif oo kale sida sharabaadadii ama waxaan loogu socon karin liiqali culayskiisa xadiid buu ka samaysay ama quraarad culus ama loox laguma socon karo ama waxaan loogu socon karin lidiiqihi inuu qofka hayo oo cidhiidhi uu ku yahay khuf ka yar buu xidhay iyadoo cabirkiisu yahay 42 ayuu xidhay khuf 38 lugtii buu cidhiidhiyaa qofku dee kuma socon karo markuu dhaqaaqaba uu qabanaya masaafo intee leeg markaa in lagu socon karaabaa khufka shardi u ah waxaa shardi u ah masaafada lagu socon karaa inay tahay masaafada qofka musaafirkee meel degay uu u socsocdo danihiisa si inuu xaabo soo qaatay inuu caws u soo qaado ama u soo jaro xoolihii watay waxay cunaan iyo masaafada intaa leg marka ma qofkii inuu musaafir yahay baa shardi ah maya hadduu muqiim yahayna waa in masaafada intaa leeg uu khufka ku socon karo hadduu musaafir masaafada intaa leeg waa inu ku socon karo oo muddo intee leeg waa inu ku socon karo dee hadduu muqiim yahayna yoom waleyla ugu yaraa waa inu ku socon karo khufki oo litaradudi musaafiri lixaajatihi masaafada intaa leeg yoom waleyla waa inu ku socon karo oo khufkii u adeegsan karo hadduu musaafir yahayna 3 ayaam walayaaliyahun way muddadaa dabadeedda in la bixiyaaba waajiba oo lugtii la maydho kadib ha la xidhaama maydhistaa la iska sii wadabe arrinta noocana maxaa u daliila arrinta noocana waxaa u daliila almasxu cala alkhuf waa ruksa maxaa loo ruksayey xaajada loo qabo dee baahida loo qabo dee khufkii haddii uu yahay mid aan laguba socon karinba oo qofku danihiisii aanu kuba qabsan karin meelahan dhowdhow aanu kaga soo qabsan karin ma baahi buu u qabaa baahi uma qabo bal laa faa'iidata lahu fiih wax faa'iido uu leeyahay ma jirtee dee dhib baabu ku yahayba soo ma khuf bir ka samayso lugtaba aanu qaadi karin buu xidhay wax faa'iidaa buu leeyahay faa'iido uma leh markaa sababtu waa taas waayo sawaaun waxaa isku mida halkana wuxuu ku tilmaamayaa khufku wax gaara inuu ka samaysnaado inaanay shardi ahayn in shuruuddaa laga helo ayuunbaa la rabaa wuxuu doonayaa ka samaysnaado sawaan waxaa isku mida kaana haya alkhufu khufku min jildin mid ka samaysan harag aw libdin ama ka samaysan suuf dhoobmay oo libdigu waa asuuf almutalabid markaynu laamka hoos dhigno ba'dana sukuunino haddaynu laamka iyo ba'daba fatxino inu labad nidhaana waa suufka
marka libdun waa kullu shacrin aw suufin mutalabid dhogor kaste ama suuf kaste oo dhoobmay macnaa wixii harag kama samaysnaa laakiin suufku ka samaysanya laakiin waa daamur ama wax kale waxbaa lagu dhoobo wax adag ka dhigay oo lagu socon karo wa khiraqin سواء نحسكم كان هيا الخف مصنوعا مثل قسم من خرق قبل مريعة أو مطبقة ومثل يسكت ضبولي يعني سيل يسكت ضبولي ملصقة بعضها ببعض يسكت دقن ولا يسكت طلع ومريات صالحان لا يسكت طلع أما حبك بابا مريا اللي يسكت دشي رسا خوف لقسمي way isxoojinayaan waqti waxa ay yeelanayaan awood ay ka dhalatay in lagu socon karo iyada inay biyaha celiyaan marka sharabaadkii tusaalaantii xoog badnaa ee suuf xoog badan ka samaysnaa oo biyaha celinaya isla markaana dee lagu socon karo meelahan dhow dhow lagu gaari karo xukm الخف buu yeelanaya walow suuf baa ka samaysnaaday ama maryabaa ka samaysnaaday أو خشب أو كان ما هي مصنوعا مثل قسم من خشب اللوح أو غير ذلك ما كوالا الشيء وحانا هاي مثل قسم هي أو كان ما هي الخف خفك مشقوقا مد الأعصن وشد الواد كي بشرج بلدم الواد كي دلاع عيسى بلدم الواد كي صدت صلان كبا بوركا خفك تحبو لي يعني ما شاد الأعصن lugtu inay si sahlan uga gasho loogu talagalay ayaa lugtii marka la galiya tax lagu xidhay sida kaba buurka oo kale maro lagu taxal lagu xidhay ama baldhamu leeyay xodhib male wixii halka baldhamadu ku yaalaan ka gali kare biyaayna wax dhib uma yeelayo oo masaladii ahayd maani'a linufudil maa'iba tan laga istithnooda sababtu fiqiga ku taal oo laga soo reeba oo biyuhu waa inaanay galahayn oo lugta aanay u gudbahayn soo shardi ma ahayn waxaa laga soo reebaa min gayri maxalli lkharz meeshay baldhamadu kaga yaalaan ama taxuu kaga yaal meelaan ahayn waa inay biyuhu aanay ka gelin halkaas inay ka galaan wax dhiba ma leh oo masixitaanka inuu bannaanaado diidi mayso waay falow labisa hadduu xidho buu yidhi ay man lahu rijlaan qof laba lugood leh khufan khuf hadduu xidho fii rijlin labadii lugood midkoodu ku xidho ليمسحه سوء مسحه ويغسله ما يرى الأخرى تكله لم يجوز أرن كاسمة بنانا قور ما بنانين إذا فعل ذلك مقصود كو أساس الأصع أساس السميمة وقف لبلو قاد له مدبو خف قليي ومسح تا خفك ومسح تيك لنا خف بمقلين وما يرى لا يصح أرنك نوع عسيمة صحيح وأيد خفك شردقي سواء يكون ساترا لمحل الفرد صما محل الفرد يقول هو قدمينك مع كعبيهما لابد مو وضع أسطر ميدو مو أسطر حبين قرار اسكندقي لابداس واي حديثة واللوق قرار اللي هاي دي اللوق تايم تحبط خفك كتشوفوه مسيحي كرا اللي ميت كلام بالله هاي ومحل الفرد يقول وضع أسطري خفك وضع أسطري أو ظهر أما هدو كظاهره إيه لو ظهر هدو ظاهرة من الرجل لقتي هدو كظاهر كم موغضو الرجل يودن لو متشهده محل الفرد منها بقى لو تشهده انت ميرستيدو اي فرالكا هيدا لقطة كم إذا هدو كم موغضو شيء وإن قلها بير هذا من خرق دلاع هدو كم موغضو في الخف خفك كسوغا لم يجوز ما بنانا ها marka masalada hore tacliilkeedu waxa weeye wal isweydaariye tacliilkeed haduu labada lugood mid qof galiyo masaxo midna uu maydho dee khufka lam yalbasu ala taharatin kaamila tahara dhammaystiran kuma xidhan sooma tan labaadoo marka lugta intii meedhisteedu ay faralka ahayd wax ka mid uu muuqdo oo macna biyihii dee ay u gelayaan إذا وحنو مسيح كرين لأنه خفك مد وضع أسطوري معها محل الفرد مد وضع أسطوري معها وإنت مقتدي حكم كيد والغسل ومارس
lamana odhan karo lugtii qura ahayd baa inna meedhisteedu ay waajibtay inna masixitaankeedu uu bannaan yahay lama odhan karo marka qofka hadduu dilaac leeyahay masixitaankiisu ma ansaxayo cala aljadiid qadiimkuse wuxuu leeyahay qadiimka shaafici waa la masixi karaa waayo dee safarkii lagu masixi karaaba xadiida kusoo aroortay khufkuna inuu dilaac yeesho ayaa u qaaliba haddii lagu safro dee lagu socdo iyadoo safar la yahay in la hagaajiyaana inta badan waa adagto qalabkii lagu hagaajiya lagu toli laha inaan la sidan baa laga yaaba qadiimkana wallahu aclam xagga daliilka u dhow oo in la idhaahdo khufka waxa shardi u ah inaanu meella ka dilaacsanayn waxay ka hor imanaysaa waktigii nebiga calayh salatu salam siduu xaalku ah oo saxaabadu dee marka qaarkood baana xataa khuf aanay lahayn oo maryo lugahooda ay ku duuduubayeen oo kaba ay ka dhiganayeen marka halkay ku haysteen khuf wada bad qaba oo dilaac aan lahayn lihada ba alimaam sufyaan wuxuu raximah allahu tacala imsax calayhima ma tacallaqat bihima rijlaak wahal kanat khifaafu lmuhaajiriina walansaar ilaa mukharaqa inta aad ku socon kartee lugtaada ay qabanayaan labada khuf masax khufafkii muhaajiriin iyo ansaar ay xidhnaayeen kuwa dildilaaca labay ahayn xaalkaaba dee taa keensanayaba laakiin saalan ku taalla waa jadiidkii shaafici wey waljurmuuqu buu yidhi jurmuuqu huwa jurmuuqu khufun waa khuf fowqa khufin khuf kale laga dul xidhay fain kaana hadduu yaala calaa ka sare qawiyan mid xoog badan bimacnaa lagu socon karo socodkeena hore soo sheegnay walasfalu ka hoosana uu yahay mukharaqan mid dildilaacsan falahu waxa u bannaan qofkii labadaa khuf iska dul xidhay masxu laclaa ka sare qawigaa inuu masxo masaladanna waa masalada ku saabsan haddii laba khuf qofka uu iska dul xidho iyo suwar iyo xaalado arrintaasi ay leedahay marka jurmuuqu waa farisiyun mucarab horta kelmada asal ahaan carabiya maaha waa luqadda reer faris oo carabiyowday jurmuuqa markaa fuqahadu waxay u yaqaaniin san waalama ku sheegay khufun oo fowqa khuf laba khuf oo la iska dul xidhay laakiin ahlu luqa iyagu saa waa ka duwan yihiin oo asal ahaan jurmuuqu khuf maaha inuu u xidho waa shayun oo yushbihu lkhufa fiihi itisaacu waa shay khufka shabaha oo ballaadhan oo yulbasu fowqa alkhuf khufka dushiisa khufka laga sii dulgeliya isagu khuf maahe fi lbilaad albaarida dhulka qabow laakiin fuqahadu jurmuuqa waa khuf laga dul xidhay walihada bay yidhahaan jurmuuqaan oo labadii khufka hoosiyo ka saraba magaca jurmuuq bay siiyaan marka suurada laba khuf haddii la iska dul xidho masaladaasi ay yeelanaysaa waxa weeye suurada koobaad inuu kasara yahay qawiyanta wuxuu uga jeedaa saalixan lilmasxi inuu yahay mid shuruuddii masixiisa uu ku ansaxayay laga helay qawiyan saasuu uga jeeda ka hoosena uu yahay mukharaqan wuxuu uga jeedaa hayra saalixin lilmasxi oo ka hoosena mid masixitaankiisu ansaxaya ma aha oo shuruuddiibaa ka maqan ama ka kala dhiman oo qawiyanta iyo mukharaqantu lafdigani muraad maaha qawiyan saalixan lilmasxi buu uga jeedaa mukharaqanna muxuu uga jeedaa hayra saalixin lilmasxi buu uga jeeda falahu masxu laclaa ka sare inuu masaxo ayaa ku filan waayo mar haddii ka sare uu yahay mid shuruudda ay u dhan tahay falasfalu kalcadami ka hoose ee shuruuddu ka kala dhimantay waxaan jirin oo kala weye inaanu xidhnaynba dee ka soo qaad suurada labaadna waa tan wain kaana hadduu yahay alaclaa walasfalu ka sare iyo ka hooseba qawiyeyni hadday yihiin qawiyeyni maxaa looga jeeda waynu idhi saalixayni lilmasxi shuruuddii masxiga laga helay waa suurataas suurada kale la xukumkiina waa tan aw kaana ama uu yahay alqawiyu ka masixitaankiisu ansaxaya alasfala ka hoose
والأعلى هو غير صالح للمسح لم يكفي مسح الأعلى كسرين ومسحاكم في الله لبدا الصورة وهذه اللبادي بقى يهين وحويان صالحين للمسح شروط مسح اللبدا بقى هذه لقوة هلاي إنه كسروا مسحاكم في الله هذه مروا كسر مسحاك هوسي آنو قيانكم قارهين سببتها محي لأن الرخصة وردت في خف وتعم الحاجة إليه ويقفك واحد لو الرخصة إنه مسحا خف باهي وقبه حرشيس باهي وقبه مر هذه اللبادي خف باهيين صالحين للمسحنا كان صار باهي ومقبه وايو ده كوسو كافتومي كره واضح ما marka kasara muxuu noqonayaa mar hadii kii sariye kii hoose ay isku mid yihiin khuf aanu baahi u qabin buu noqonayaa saa ugeed baanu masxigiisu u ansaxahay waay hadii kasara uu yahay غير صالح للمسح ka hoosana uu yahay صالح للمسح kasara masxidiisu kuma filla waayo de waa غير صالح للمسح وشروط دي بانو دمايسترنين ومخرق تصالحان اما هو غير مانع لنفوذ الماء واي ولهذا بين وان لم يصل البلل للاسفل هذه كنسر وخراب اسكا yahay oo ka hoose wanaagsan oo kansar marka la masaxo ka hoose uu qoyaanka gaariyo masxiga marka uu ansaxaya waay waxa jaayo de isaga loo qabaana ma jirto saynu sheegay mar hadii ka hoose uu hagaagsan yahay ولهذا wuxuu rifay wasala haduu gaaro albalal qoyaanki minuu isaga uu ka gaaro ila al-asfali ka hoose kafa مسحigaasi waa ku filay oo kiisara waa غير صالح laakiin masixitaanka sare la masaxay ayaa qoyaankiisi kii hoose gaaray marka de masxigu uu xaasilay oo kii hoose صالح للمسxiga uu xaasilay maxay masixitaankiisa uu xaasilay qoyaanka gaaristiisa ayuu ku xaasilay sawaan waxa isku mid ah xaaladan qasadahuma labadaba wada qasada masxahuma masixitaankooda wada qasdiya أو الأسفل فقط أما كهوسون قصدية أو أطلق أما أصل المسح قصدية لا إن قصد الأعلى كسرها دو قصدية فقط حاله كليدي هاي مايا ما انصحي المسألة دي هاي هدي وكسر خراب هاي وكهوس ونكسي ما كسر مسحتان كيسو كما في الله دي شروط دي بانو دمين صوما كهوسنا دي ساقا كسر رأيه taasuu masaladan ka soo reebayo haddii kaa kharaabkaa ee dildilaacsanee sare masixii la masaxay qoyaankiisii ka hoose uu gaadho masixitaankii waa ku filan yahay ama masxiga labadaba hawla wada qasdiyo ama ka hoose uun hawla qasdiyo ama ha itlaaqo oo masxuun ha u qasdiyo midna aan ku qaydnayn oo itlaaqu waa qasdu asli lmasxi لكن هدي وقصديه كان سريع دلدلاع صنون مسيحتان كيس ما انصحي لكن مسيحتان كيسي شروط دي بقى كما قناه واي ولا يكفي الوجود الصارف بقصد ما لا يصح مسح واحده اذا كليدي لما صحي كرين ايو مسحي ولا قصديه او ولا نيودي marka koosay inuu qoyaanku gaaro waxba tarimayso waayo isaga si gaariyo si guutoon ugu muqasti wayusannu hadaba halkee khufka laga masaxaya oo marka halkee la masaxo ayuu masxigaasi ka gudayaa halkii maydhista lugaa u galaya taasoo kaga hadlay wuxuu wayusannu waxa la sunneeyaa masxu ala al-khuf khufka xaqiisa sare in la masaxo wa ala al-khuf wa kharijka marka qadamka ka sareeya وانت قدم كسر رئيس خارج كده دبدين
iyo wa asfalahu iyo xaggiisa hoosaba waa xagga dhulka xigta weeye khaarijka dabadda dhulka xigta weeye asfalkuna iska ilaaliya iskaga ka khaldamin acla alkhuf iyo asfalahu iska soo horjeeda iyo dhaahiru alkhuf iyo baatinuhu iska soo horjeeda waa kala laba oo dhaahiru alkhuf waxaa looga jeedaa in xagga lugta xigta mooyaane xagga kale baatinkana waxaa looga jeeda xagga lugta xigta ee lugta ay istaabanayaan acla alkhufna waxaa looga jeedaa khufka dabadiisa oo dushana xigta asfal alkhufna waxaa looga jeedaa khufka dabadiisa oo hoosta iyo dhulka xigta baa looga jeeda waa ereyo kale macno duwan wacaqibahu wayusan waxaa la sunneeyaa masxu caqibihi cidhibtiisana in la masaxo khufka cidhibtiisa khuuuطan masxa khuuuطin layman masixitaankood ama masax laymana oo mudaafkii baa la jaray oo masxiya mudaaf ileyhigi khuuuطa ayaa deetana laga naaib yeelay asalku muxuu ahaa masxa khuuuطin buu ahaa masixitaan layman ah bimacnaa waa inuu faraha kala kaxeeyo markuu masaxayo inuu saa isugu dhejado saa isugu dhejiyay dee layman noqon maayo inuu saa u kala kaxeeyo saa deetana u dulmariyo bila istiicaabin ay masxan masixitaan oo bila istiicaabin bilaa koobisa oo khuuuطan tunbay markaa dee taakiid usii tahay mid khufkii meel wal oo ka midaba masaxaya aan ahayn walaa takraarin ku celcelinna aanay la socon marka in laga masaxayo xagga hoose iyo xagga sare iyo ciribta iyo maxaa u daliila xadiiث muغيرة بن شhuعبة النabiya masxa calى الkuf wa asfalahu imaamu axmed iyo abu dawud iyo baa wariyey tirmidina wuxuu sheegay inu xadiiث macluul ah aimo badan oo xufaad اlxadiiثa baana xadiidkaa daciifiyey waxaa ka mida bukhaari abu zurca saynu sheegnay tirmidi shaafici laftiisu fi اlqadiim xadiidka wuu daciifiyey haddaa fi ljadiid muxuu u cuskaday istixbaabkan uu sheegayo wuxuu u cuskaday bu uhi nawowi raximah اllahu tacaala ahar ibn cumar oo bayhaqi wariyey ayuu u cuskaday bu uhi waay bila istiicaabin walaa takraarin in lagu celceliyey iyadana maxaa loo diiday lannahu yufsiduhu ka gaslihi lannahu khufkii haddii masixitaankii lagu celceliyo waa taasi khufkii bay kharibaysaa sida maydhistuba ay u kharibayso marka takraarka iyo guslu khuf labadu waa makruuhaan laakiin dee masxigu wuu ku ansaxayaa maca alkaraaha kayfiyaddu haddaba u masaxaya buu sheegay ee xagga hoose iyo xagga sareba uga masaxayay wuxuu uhi fayadacu wuu dhigayaa yusraahu ee asaabica yusraahu faraha gacantiisa bidix taxta caqibihi buu dhigayaa oo lugta bidix cidhibteedu saa u hoos dhigaya wa yumnaahu wa asaabica yumnaahu faraha midigtiisana cinda asaabicihi ay calىa ظuhuuri asaabici rijlihi oo gacanta midig faraheedana faraha lugta dushoodu iyagana dhigaya marka labadii gacmood midna lugtii dushay ka saaran tahay midna hoosta waa inay isweydaarsan yihin marka tanna saasuu usoo wadaya suu sheegi doono ilaa uu saaqa asalkiisa soo gaadhsiiye tii xaggan uu ka saarayna saasuu u wadaya ilaa faraha uu gaadhsiiyo wayumiru wuu marsiinaya alyumna ee asaabic alyumna gacanta midig faraheeda ila saaq ay ilaa awali saaq saaqa isaga lama masaxaye saaqa khufka lama masaxaye saaqa awalkiisa dhudhunka awalkiisa walyusra asaabic alyusrana wuu marsiinayaa taa bidix faraheeda ila asaabici waa tii hoosteedu jirtay ilaa ciribteeda kasoo bilaabay ilaa uu faraha kasoo gaadhsiinaya tanna saasuu marinaya tanna saasuu marinaya dad isu weydaarinaya wey
fain ikhtasara hadduu ku gaabsado buu ihi haddaba calaa masxi aqali juz'in qeybta u yar masixitaankeeda qeybtaasoo min daahiri aclaahu qofka xaggiisa sare daahirkeeda macnaa khaarijkeeda ah muxaadiyan xaalo uu yahay mid la siman juskaasi limaxali lfard meeshii meedhisteedu ay faralka ahayd kafaa uu ku filay oo dee axaadiidu masxiga way ilaaqday soo ma masaxa nabiyu calaa khufay yamsaxu lmusaafiru alaaثata ayaamin walayaaliyahun oo ficiloo dee ilaaq u faa'ideynaya oo ma sheegin waxa weeyaan taxdiid marka intaa hore dee sunnay ahayde laakiin intayba masxigii ka gudaysa khufka dushiisa sare bannaanka soo xigta weliba oo la siman intii masixitaankeedu uu faralka ahaa ila haddii khufku uu dheeriyay sida kabaha buurhkaayo ilaa kubka uu gaadhayo oo halkan kubka dushiisa uu masaxo waxba u taramaysa taas khufka dusha uu ka masaxaya waa inuu yahay mid la siman lugtii meedhisteedu ay faralka ahayd ila halkaa meedhisteedii uu bedel ka yahay waxaa markaa taana u daliilanaya iطlaaq اaxaadiiث lilmasx min gayri taxdiid may xadidin axaadiiث in dusha sare la masaxayana dee xadiiثay ku caddayba wain ikhtasara hadduu ku gaabsado haddaba cala اlasfali xagga hoose ee khaarijka xagga dhulka xigta ee calaa masxi اlasfali aw ilcaqibi ama cidhibta masixitaankeedu ku gaabsado aw ilxarf ama girgirada masixitaankoodu ku gaabsado aw ilbaaini ama xagga gudihiisa lugta xigta ayuu intuu geliyey gacantii ayuu masaxay mima yeli xaalo baainkaasi uu ka mid yahay ka xiga albasharata wuu bayaaminaya baainku bayaaminaya falaa yakfii kuma filla waayo in xagga hoose un lagu gaabsado axaadiida kumay soo aroorin wakadalika ciribta iyo girgirada iyo in khufka gudihiisa xiga lugta la masaxaana axaadiida kumay soo aroorin cali bn abi alib wuxu low kana diinu bira'yi lakaana asfal اlkhufi awlى bilmasxi min calaa laqad ra'aytu rasuula اllahi yamsaxu calىa daahiri khufay daahirku masaxay oo khaarijka ah xagga lugta xigta mooyaane xaggan sare ee banaanka xigta uu nebigu alayh الsalatu salam sax wamataa daharat الrijlu marka ay lugtu muuqato yani arijlu wuxuu uga jeedaa maxalu fardigii la soco arijl haddii la ilaaqo fii baabi اlkuf maxaa looga jeedaa baynu nihi maxalu fardiga meeshii meedhisteedu ay faralkahay oo maxay ku muuqatay binascin bay ku muuqatay inuu iska bixiyey khufkiiba aw bikharqin ama waxay ku muuqatay inuu khufki dilaacay aw inqadat ilmuddatu iyaduna waa la mide ama khufki waa bad qabaaye muddadii baa ka dhamaato habeenkii maalintii baa ka dhamaaday muqiimki ama musaafirkiiba saddexdii maalmoodii habeenoodu ka dhamaadeen wa huwa xaal huwa qofkii khufka xidhnaana biwuduu'i lmasxi weysadii masixitaanku uu la socday uu qabo oo aanay ka jabin kafaahu waxaa ku filan guslu lqadamayn labada lugood inuu maydho faqad xaalo maydhista ay keli ku yihiin marka tan macnaheed waxa weeye almasxu haddii masxigii uu buro oo meesha laba masale inoogu wada jira masalada ku saabsan mubطilaat اlmasx almasxu cala اlkhufeynkii maxaa buriya iyo masalada ku saabsan qofkii oo weyse qaba haddii almasxu cala اlkhufeynkii uu ka buro muxuu yeelaya masalada hore oo ah mubطilaat اlmasx waxaa buriya awala inqiضاء اlmudda inay muddadii dhamaato mar hadday muddadii dhamaato dee masxiguu buray waxaa kaloo buriya waxa weeyaan ظuhuuru maxali اlfard in khufkii ay ka muuqato meeshii meedhisteedu ay faralka ahayd oo dee khufkiiba waa laga saarayba ama khufkiibaa dee dalool ama dilaac yeeshay masxiguu burayaa bay leeyihin qofkiina oo weyse qabaa haddaan weyse qabin de waa iska macruufka oo dee
si dhamaystiran buu qofkan uu iska bixinaya si dhamaystiran buu weysaysanaya laakiin qofku uu weyse qaba weysadii may burin almasu cala alkhufeynku un baa buray madhabku waxa weeye inuu labada lugood un maydhayo waayo labada lugood un baa tahaaradoodu ay burtay oo labada lugood tahaaradoodii maxaa buriyey dee waxaa buriyey masxigaa bedelka ah meydhistooda sooma marka dee bedelkii meesha uu ka baxay oo masxigii wixii la masaxayba waa tan lugtii laga saaray ama waa tan muddadiiba dhammaatay marka asalkii baa loo noqonayaa maydhistooda ah weliba marka la maydhayana la iska maydhi un maayee biniyati rafci lxadai ila iyaga weysadu way ka jabtay labada lugoode waxaa lagu maydhayaa waxaa la maydhaya iyadoo la niyeystay rafcu lxadath wayusanu istinaafu lwuduu'i bay yidhahdaan raafiyadu waxaana sunno ah inuu weysadii iska soo wada bilaabo khuruuja min alkhilaaf madaahib badan ba masalada ku jirta culamada qaarkood ba waxay leeyihin weysadu ma xubnaha kama kala burtee way u wada joogtaa ama way ka wada burtaa haddii labadii lugood ay weysadu ka burtay dee kuwii kalena ka burti oo xubnihii kale weyse qaba labadii lugoodna ma weyse qabaan weyse hore oo jirtay bay intii kale ku weyse qabaan labadii lugoodna way ka burtay sax baa bay leeyihin walihaada khilaafkaas si ay uga baxaan bay yidhaahdeen wayusanu istinaafu lwuduu madhab kalena waa jiraa oo odhanaya maya hadduu qofkii iska bixiyo iyo haddii meele ay muuqato iyo hadday muddadu dhammaato weysadiisu waa sideedii si dhamaystiran buu weyse qabaa qofkaas xataa labada lugood inuu maydhaa waajib kumaa waxay la mid tahay uun nin intuu madaxa masaxay timi iska xiray miyaynu odhanaynaa madaxa weysada way ka burtay almasxu cala ra'sigii isaga kusoo celi wakadalika nin cimaamad xidhnaayo qolooyinka la isticaabu ras madaxa in la wada masaxaa waajibay taasi ku dhawoobi karta nin cimaamad xidhnaayo intuu cimaamadaa masaxay dabeetana cimaamaddii iska bixiyey kuwaasun bay la mid tahay bay leeyihin waxaana madhabkaasi laga soo wariy xasan albasri iyo qataada ibn mundir laa yalzamhu shay wa tahaaratu saxiixa bay leeyihin nawowina qowlkaasuu doortayba inahu lmukhtaaru alaqwa buuri waxaanan xusuustaa waad eegi doontaane oo qabla 20 sana aw akthar aan u malaynayn ka akhriyay irwaa lkhaliilka inuu soo rarayay sheekhu lalbani athar can cali bin abi aalib ma irwaa lkhaliilku ahaa mise tamaam lminah oo tilmaamaya intuu qofka masaxo markuu masaajidka yimaado inuu iska bixin jiray uu iska tukan jiray isagoo lugaa meedhistoodiina ku celin wallahu subxaanahu wa tacaala aclam وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين